السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا ayaan idin salaamaya ku xiran channelkayga oo walaashin Fatxiyo maanta idin wada muuqaal kala cusub waxaan rajeynayaa in idin ka faa'iideysan doontaan halkan waxa inoo yaala alaabihii aynu rabnay inaynu ka sameeyno halkan waxa inoogu jira 6 koob oo daqiiq ah waxa inoogu jira half liter biyo ah ama liter barkii malgacada yar oo milaxa iyo malgacada roon ee cuntada lagu cuno oo sonkor ah 50 gram oo yeast ah to wax lagu khamiiriyo iyo 50 mililiter oo ah saliid anigu hadda noocaan haysto waxa weeye olive laakiin saliidda cuntada caadiga baad ku darsan kartaa dib ma laha marka hadda waxaynu madimada ku shubanay fixisadii in biyo ana waynu ku darsanay intaas aynu isku yara walaaqaynaa si fiican baynu isugu walaaqaynaa si aanay burbur inooga yeelanin fixisadu oo ay u milanto waa inay wada milanto inta aana daqiiqda iyo waxaa lagu shubin daqiiqda dabcan waa burka wax yar waynu isku milnay si fiican baynu isugu milnay kadib waxaynu sameynay wax yar baynu yara dhignay sida in yar soo yara faxdo masha Allah hadana waxaynu ku darsan doonaa waxyaabihii kaleeto ee aynu ka sameynahay roodidana waa roodi aad u macaan masha Allah waad kaga maarmaysid roodida dukaamada waxaan ku daray biyaha intii harsanayd iyo malqacadii yareyd milixda ahayd malqacadii roonayd sonkorta ahayd 50 mililiter saliid ahaa intaas ayaynu isku walaaqaynaa masha Allah si fiican sida milixda iyo sonkorta ugu milmaan waxyaabaha kale dareeraha ayaynu isu dhexgelinay kadib daqiiqda ayaynu ku shubanaynaa qayb mar kaliya kuma wada shubayno tii kale waxaa laga yaabaa inay ka adkaato marka waxa fiican inaad horta in marka hore si fiican u dhexgeliso waxyaabihii aad ku qasaysay kadibna aad yar ugu shubato in kale aynu ku shubnay hadduu qofku dareemo maaragtay in ay daqiiqdii oo weli in yar u harsan tahay ay xashkii roodiduna uu adkaaday oo aanu daqiiq kale u baahnayn wuu iska dayn karaa inta harsan sababtoo ah muhiimaddu waxa weeyaan inay xash fiican oo aan dhegdhegaynin oo israacsan uu kuu noqdo oon farahaagii waxa ku dhegdhegin akhyaaray waan soo xashay si fiican ayaan u soo xashay kaaliska arag maasha Allah daqiiqdayntii dabcan harsanayd waan ku daray waxaan rabay fiidiyoogina aan xoog idinku dheeraanin marka waan idinka googooyay maasha Allah qurux bay noqotay kadib waxaynu sameynaynaa madiimad kale oo tan ka kooban tan way weyn tahay ayaan rabaa inaan ku rido si ay ugu faxdo wax yar oo saliida baan soo mariyay madiimada quraarada ah ama baaquliga dhalada ah markaan soo mariyay si waxaan u mariyay inaanay maxay tuli igaga dhigin hadhowto markay faxdo saasaan ugu ridaynaa kadib bac ayaan dhakada kaga xidhaynaa bacdan aynu ku daboolanaynaa haddii Ilaahay ka dhigo shagde maasha Allah bacdi weynaga waxaan ku wari jiq ku siinay halkaas aynu iska dhigaynaa meel yani kala geyn mayno halkaas ilaa adigu 1 saacad oo laysa waa inay madiimada baan ku wari ka badbadato oo sidaas ay yani intii markii hore leegeed ka weynaato maasha Allah waa aragtiinba qurux si fiican bay inoogu faxday
hadda waxaanu isku dayeynaa inaynu markaa ka fujino bacdii aynu markii hore ku daboolanay. akhyaarey waa aragtaan siday usoo faxday maasha allah. roodhida hadday si fiican u faxdo roodhi qurux badan bay noqotaa. dhagdhe waynu ka fujinay maasha allah. waxaynu sameyneynaa markaa waxaynu ka gedinaynaa madiimadii. waxaynu warqadda halkaas ii saaran ayaan ku riday. marka waxaan sameynayaa laba qaybood baan rabaa inaan ka dhigo oo isleeg. waxa fiican hadduu qofku haysto waxyaabaha wax lagu miisaamo saas ugu miisaaman karaa si laba qaybood isleeg ay u noqoto. hadda waynu kala goynay maasha allah. dhexdaan ka kala jaray markaa mid walba gaarkeedaynu u dubaynaa. mid walba xabad roodhiyo weyn baynu rabnaa inay noqoto. sidaasaynu haddana qayb ka dhiganay. weliba sidaa kusii dayn mayno ee markaynu ku ridno birta foornada aan ku gelinayno ama ovenka ayaynu kusii kala yara bixinaynaa si ay u dheeraato oo qiyaastii birta dhexdeeda ay ku simanto. maasha allah. sidaasaynu ugu wadnay. haddaad laba birood oo sidan oo kale oo isla leeg haysatid isku mar ayaad ku sameynaysaa. isku mar baad ovenka isla gelinaysaa. laakiin anigu hadda waxaan haystay bir keliyata marka waxaan sameeyey midba mar baan geliyey. waad fixinaysaa marka birtii ovenka markaad ku rido banaankaad dhigaysaa cabaar yar adigu ilaa 30 daqiiqo waa inay soo faxdo si fiican u faxdo. kadibna waxaan gelinaynaa ovenka. waxaan ku dubaynaa qaybta hoose oo ovenka 200 oo degree muddo ah 30 daqiiqo. 30 daqiiqo haddii ay maaragtay ka intaanay gaadhin 30 daqiiqo haddii aad aragto inay si fiican color fiican oo colorkaas brownka quruxda badan ay yeelatay waad ka soo saaraysaa. yacni 30 daqiiqo dhan lama sugaysid haddii 30 daqiiqo ka hor kuu bislaato. maasha allah waa aragtiin indhihiina idin macallina qurux siday u tahay jileec kaalayska arag. asxaabay roodhidii dukaamada maxaad kaga duwantay waa taas. tanaabad waxaan kuli gurigaaga ku samaysatayo nadaafadeed iyo wax walba aad ogta. xabadii kalena waynu ka soo saarnay maasha allah. labadii xababa waa inoo diyaar. kaalayska arag qurux maasha allah. aad ayay u jilicsan tahay maasha allah. kaalayska arag waxaynu sameyneynaa waynu jarjaraynaa mid ahaan. waxaan idin tusayaa siday dhexda uga bislaatay. mindidii baynu soo qaadanay lagu jarjari jiray. marka waa inaan idin tuso qaabkaan rabo inaan u jarjaro. dhagdhe intaa horeynu ka goyneynaa. halkaasaynu dhigaynaa. haddana xabad kaleynu jaraynaa. maasha allah tabaaraka allah. dhexdu say uga jilicsan tahay miyaa soo ma aragtaan. ilaah baan kugu dhaariyay roodhidaas ma waxaan ku iri ma waxaad is leedahay gacan baa waxaan ku iri lagu sameeyey guri. waxaad is leedahayba haddaad sidaa u taabato waxaa lagu sameeyey mishiin baa sameeyey ka war. maasha allah tabaaraka allah qurux dhagdhe maasha allah. waxaan kuri way yaabeen dadkii aan roodhidan markaan sameeyey. waxaa laygu yiri maxaad u furan weyday dukaan roodhida aad ku iibiso. intaasina waa ammaantii iga soo gaadhay roodhidaas aan idinla wadaagay.
aad baa u mahadsantihiin fideogan haddii aad ka heshay sii sheer garee waxaan kuuli ka faa'iidayso haddaad nagu cusub tahay subscribe noo saar channelka like taha ka ilaawin asxaabtayda qaaliga ah aad ayaad u mahadsantihiin oo aan idinka mahad celinayaa dhiirigelintiina waa walaashiin Fatxi oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo waa inoo iyo muuqaalka kale ee cusub insha Allah wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh